waan salaamay daawadayaasha ku xiran stream nagast kusoo dhawaada barnaamijka aflaamta oo aad daawataan maanta oo kale asbuuc walba. barnaamijka waxaan kusoo qaadan doonaa wararka aflaamta, filimada box office-ka ganacsiga ay ka sameynayaan iyo qaybta ugu dambeysa aan kusoo qaadan doono xubin gaar ah oo aan ugu talagalnay ama aan ugu magac darnay noqo actor fiican. barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa qaybta filimada box office-ka ganacsiga markaa ka sameynaya. haddii Bollywood aan fiirin waxaa ku jira filimka la yiraahdo Kartikeya 2 ka oo isagoo markaasi si fiican ama hanaan fiican haatan ku socda. filimkan ganacsigiisa aad u fiican yahay isagoo asbuuciisii saddexaad markaasi galay, waxaana uu sameynayaa ganacsi aad u fiican marka la eego heerkii ku bilowday, inkastoo asbuucan horaantiisii markaasi culays badan la soo saaray maadaama ciyaar weyn oo cricket ah dalka India ka jirtay. filimkan haatan waxaa markaasi uu ku guda jiraa asbuuciisii saddexaad iyadoo markaasi uu ku dhow yahay in uu filimkan noqdo filim guuleystay ugu yaraan darajada markaa average gaaray ama semi hit markaa inuu noqdo. filimkan haddii markaasi aan fiirino waxaa markaasi uu hadda tiyaatarada markaa saaran yahay asbuucii saddexaad sidaan hore kugu sheegnayba, waxaana uu guuleystay isagoo markaasi tiyaatarada ay saaran yihiin filimaan kale waaweyn. filimkan waxaa markaasi uu haatan ka dambeeya filimka Rocketry oo ah filimada markaasi ama kamid ah filimada koonfurta India ay sameeyeen sanadkan gudihiisa ee ganacsiga fiicanka sameynaya. waxaana sidoo kale markaasi uu ka dambeeya filimada kale ah KGF Chapter 2, Triple R iyo Pushpa oo iyaguna markaasi ganacsiyadooda ay ahaayeen kuwo markaasi aad iyo aad markaasi u sareeya. si kastaba haatee haatan waxaa ganacsigiisa markaa asbuucii koowaad uu noqday 4.4 karoor, halka asbuuciisii labaad uu ahaa 11.2 karoor. asbuuciisii saddexaad haatan waxaa markaa uu kasii tallaabaya 5 karoor, waxaana markaa taas ay ka dhigan tahay in 20 karoor markaasi uu hadda net markaa joogo ama profitkiisa hadda 20 karoor markaa inuu maraayo. haddii marka filimkan uu ku dhameysto 25 karoor oo ah meesha uu higsanayo wuxuu noqon doonaa filim average ah ama semi hit ah, waana filim guuleystay maadaama miisaaniyadu ku fadhiyay marka hore ay ahayd miisaaniyad aad isaga yar. filimka labaad ee isaguna markaasi box office ganacsiga ka sameynaya dhawaan markaasi isaguna kusoo biiray tiyaatarada waa filim markaasi la yiraahdo Liger, gaar ahaan qaybtiisa af Hindiga markaasi ganacsi gaabis oo markaa filimkan sameynaya. waliba waxaa markaasi muuqatay in filimkan uu noqon doono markaa filim guul dareystay maadaama sida hadda uu ku socdo marka loo eego ay tahay ganacsi niyad jab leh. filimka Liger waxaa markaasi laga sameeyay sheeko markaasi la xiriirta fiiryahankii weynaa ee Mike Tyson, waxaana filimkan hadda markaasi uu asbuuciisii labaad xadiis koowaad markaa uu sameeyay 1.25 karoor oo lacag aad markaas u yar. filimkan gobolada ugu fiican ee laga daawanayo tiyaatarada ugu fiican oo ganacsi ka sameynaya waxaa kamid ah Bihar iyo Berar iyo sidoo kale Odisha, gaar ahaan single screenska ama tiyaatarada markaasi yar yar. tiyaatarada markaasi single screenska waa tiyaataro haddii markaasi daawada aan ku micinayo ah in tiyaatarka kaliya filim in laga daawado loo imaanayo oo aysan jirin adeegyo kale oo la socdo. waxaa soo kale jira tiyaataro kale iyaguna la yiraahdo multiplex, kuwaas iyagu waxay ku dhex yaalaan dukaamada ama moolalka waaweyn ama goobaha ganacsiga, waxaana kuwaas ka daawada filimada dadka meeshaas usoo ganacsiga ama shoppingka kasoo doontaa filimadaas markaa galo. filimkan Liger hadda wuxuu maraa ganacsigiisu markaasi uu marayaa 13.7 karoor, waana lacag markaasi hooseysa markii loo fiiriyo miisaaniyadda uu ku fadhiyay. saas darteed Liger waxaa markaasi qolada iskale ama teamka iskale gaar ahaan producerka markaa uu sheegay in markaasi niyad jab ay ku tahay in filimkooda sidan markaasi uu ugu burburo tiyaatarka. haddii aan fiirino wararka filimada waxaa markaasi daawadayaal ka mid ah actorka lagu magacaabo NTR Junior, waxa uu haatan ka heshiis la gaaray Buji Babu oo ah director weyn. NTR hadda waxaa markaasi u diyaarsan filimo badan oo shaqadooda markaa ay socoto, waxaan hadda heshiis kale uu la galay Buji Babu oo filim kale markaa uu la saxiixday. filimkan waxaa hadda socotay scriptigi markaasi inuu qoro directorka filimkan iskale ee Buji Babu, kaas oo markaasi hadda soo gabagabeeyay. markii uu soo gabagabeeyay waxa uu shaqada la wadaagay NTR-na wuu aqbalay ugu dambeyn. Buji Babu waxaa markaasi la sameyn doonaa ama bilaaban doontaa shaqadiisa sanadka soo socda 2023 horaantiisa, maadaama hadda NTR uu shaqo ku wado filim markaasi ay kamid yihiin. waxaa markaasi hadda jira filim markaasi uu sameynayo oo waxaa kamid ah filim markaasi uu simaka ama director ku yahay Kortala oo isaguna 2023 markaasi shaqo iyaduna markaasi uu soo bixi doono. soo kale waxaa filimkan markaasi NTR uu la sameynayo ama filimada kale uu sameynayo waxaa markaasi kamid ah filimo iyaguna soo bixi doono sanadka soo socda bilowgiisa.
soo kale sheekooyinka filimada soo bixi doona waxaa kamid ah filim markaasi ama sheekooyinka ka cusub filimka Javan ee Shah Rukh Khan markaasi uu soo wado waxaa hadda markaasi lagu soo daray jilaaga markaasi doorarka badan markaasi sameyn kara Vijay Sethupathi ka oo markaasi filimkan ku qaadanaya lacagtii ugu badneed ee ebid marka filim uu ku sameeyay isaga Javan waxa uu kamid yahay filimada Shah Rukh Khan marka uu ku soo laabanayo gaar ahaan wali filimkiisa labaad maadaama filimkiisa kood uu ku soo laaban uu yahay filimka Pathan oo iska leedahay shirkadda Yashraj Films waxaa lagu soo daray filimkan Vijay Sethupathi markaasi waxaana la sheegay in uu door markaasi ka soo horjeedo Shah Rukh Khan kiisa uu qaadan doono inkastoo aanan si cayiman loo sii carabaabin Shah Rukh Khan waxa uu aqbalay in uu waajilagan Vijay Sethupathi marka uu siiyo lacag 6 karoor oo maris ah si filimkan marka uu wada sameeyaan waxaa markaasi jirtay riyo badan oo ay ku taamayeen taageerayaasha filimada koonfurta iyo kuwa Bollywoodka oo ahayd in labadan hogaamiye ama labadan xidig ay hal filim marka wada sameeyaan tii ayaan hadda marka waxay u muuqataa inay rumoobeyso maadaama Vijay Sethupathi iyo Shah Rukh Khan ay ku xifaaltami doonaan filimka Javan oo markaasi ah filim action ah oo sidoo kale khiyaano ku jirto sidoo kale uu director ka yahay directorka markaasi lagu magacaabo Atli oo ku caanbaxay sameynta filimada action-ka ah gaar ahaan kuwa khiyaanada marka ay ku jirto sidoo kale Shah Rukh Khan filimada markaasi soo socda ama markaasi uu damacsan yahay in uu markaasi sanadka soo aadan ama kan ku xiga marka uu la soo shirtaga waxa markaasi ku jira filim markaasi cusub oo laba ah oo saxiixday inkastoo magacooda aan la carabaabin laakiin waxa uu iska diiday filimka Don 3 marka inuu sameeyo maadaama hore Don 2 uu sameeyay hadda waxa uu diiday in Don 3 marka uu sameeyo waxaana jira filimo kale oo marka uu saxiixday hore waxa markaasi ugu balansanaa filim markaasi ay kamid yihiin Danki Pathan iyo Javan oo markaasi labada sano ee soo socota markaasi Shah Rukh Khan uu doonayo in uu ku soo laabto maadaama masrax uu ka maqnaa tan iyo 2018 maadaama filimkiisa ugu dambeeyay Zero uu noqday filim markaasi asagana Zero ah oo burburay hadda waxa marka uu doonayaa in uu si marka holac ah ku soo laabto oo taageeraashiisa uu markaasi ku qanciyo filimo markaasi cajaa'ib leh waxaana marka kamid ah sidaan hore ugu sheegnay Danki oo markaasi uu agaasimo ka yahay Rajkumar Hirani oo ah director ama agaasimo looga bartay inuu sameeyo filimada markaasi sheekooyinka reer magaalka oo gaarka markaasi la xiriira sidoo kale waxa uu sameeyaa sheekooyin markaasi aad u xiiso badan directorkan waxaana Shah Rukh Khan markaasi hadda uu sheegay in farxad u tahay inuu la shaqeeyo Rajkumar Hirani iskastaba haatee Shah Rukh Khan Don 3 waa iska diiday inuu sameeyo maadaama mashquul markaasi filimo ka micno badan kuwaas markaasi sida isaga uu dareemay uu sameeyo laba filim cusub ayuu markaasi xidhay inkastoo markaasi dib lagu ogaan doono filimadaas iyo waxa markaasi ay yihiin sidoo kale waxa markaasi wararka filimada markaasi kamid ah jilaaga markaasi lagu magacaabo magaciisa la soo gaabiyay KRK ama Kamal Rashid Khan waxa uu Vijay Sethupathi iyo Hrithik markaasi uu ku eedeeyay in ay xadeen siin markaasi ama muuqaal uu ku sameeyay filimkiisa Dish Dori filimkaas waxa marka uu ahaa filimka kaliya uu jilaagan uu markaasi door hogaamiye ka qaatay isagaan sidoo kale producer ka oo filimka maalgeliyay waxa hadda marka uu ku dhagan yahay Hrithik Roshan iyo Vijay Sethupathi maadaama siin marka kamid ah filimkiisii marka ay koobiyeen hadda waxa dhawaan soo baxay goosgooska ama trailerka filimka Vikram Vedha oo Hrithik marka uu la sameeyay Saif Ali Khan waana filim markaasi dib markaasi loo sameeyay ama sheeko markaasi hore filim ahayd oo dib loogu sameeyay oo nooc Hindi loo sameeyay filimkan waxa markaasi laga soo koobiyay filimada markaasi koonfurta sheekadiisa KRK waxa markaa uu sheegay Vijay Sethupathi oo filimkan markiisii hore ka ahaa hogaamiye iyo Hrithik Roshan oo filimkan markaasi hogaamiye ka ah labaduba inay koobiyeen siin markaasi kamid ah filimkiisii lagu magacaabo Dish Dori oo markaasi waa Dish Dori aan iraahday filimka waxa markaasi markii uu soo qaatay ama Twitter ku soo qoray in filimkiisa ay koobiyeen waxa isagana qaybta commentiga lafaha u dhigay taageerayaasha markaasi jilayaashan Vijay Sethupathi iyo Hrithik Roshan oo yiri hadii Dish Dori uu yahay filim wax laga soo koobiyeenay waa kaas orod ku qaada Oscar taageerayaasha markaasi sidoo kale barta Twitter-ka aad ugu weerareen waxaana waxyaabii markaasi ay ku sheegeen ama ku tilmaamayeen kamid ah in isaga buusan jilaa markaasi filimkiisa isaga producer-ka uu ka gadi waayay cid isaga sidin ka qaadanaysan aysan jirin sidoo kale filimada soo bixi doona ama rajaynaya soo baxaan oo hadda sheekooyinkooda iyo duubistooda la diyaarin waxa kamid ah filim lagu magac daray 100% ama 100% boqolkiiba boqol oo ay sameynayaan John Abraham, Ritesh Deshmukh, Shehnaz Gill iyo gabadh marka lagu magacaabo Nora waa jilaaga lagu magacaabo Nora Fatihi filimkan waxa markaasi director-ka Sajid Khan waana filim ku soo laaban doona maadaama director-kan muddooyinkii ugu dambeeyay shaashada ka maqnaa
si kasta ha noqoto filimkan waxaa markaasi uu noqon doonaa filim shactira oo la xiriira arrimaha guurka iyo waxyaabahaas waxaana directorka lagu magacaabo Sajid Khan markaasi uu doonayaa in filimkan markaasi uu la soo laabto isagoo muddo markaasi ka maqnaa saaxada filim sameynta. Filimkan waxaa la rajeynayaa in la daawado ama la sii daayo diiwaanada 2023 ama sanadka soo aadan waxaana markaa uu noqon doonaa filim shactira ah oo John Abraham markaa wajiga tookadan markan uu la bedelay maadaama filimadiisa ugu dambeeyay ayaan kuwa action ah hadda wuxuu doonayaa in filimkaasi madadaalo uu sameeyo shactira ah. labada jilaa waxay hore soo wada shaqeeyeen filimkii shactirada ahaa Houseful 2 oo markaasi ah filim aad markaasi loo dhacay taageerashan ay soo dhaweeyeen haddana mar kale filim shactira wada sameynayaan John Abraham iyo Ritesh Dushmukh waxaana filimkan markaasi sidaan hore ku sheegnay agaasimka ama directorka ah Sajid Khan oo saaxada markaasi filim sameynta ku soo laabanayo maadaama muddooyinkii dambe uu markaasi gadaal u laabtay sidoo kalena filmo badan oo san sameeyeen sidoo kale hadii markaa filimada kale soo bixi doona sheekooyinkooda si wadna waxa kamid ah Akshay Kumar filimkiisa soo raariyay Batru waxa markaasi laga sii deyn doonaa dhanka internetka OTT markaasi loo wareejin doonaa maadaama filimkiisa ugu dambeeyay Raksha Badan ku fashilmay tiyaatarka waxa filimkan kooxda iskale markaasi go'aansadeen in ay si toos ah filimkan markaasi soo raariyay Batru ay u wareejiyaan dhanka OTT-ga oo markaasi internetka laga daawado. qaybi ugu dambeeyay barnaamijkeena aflaanta ayaan daawadayaal isla soo gaarnay hadii markaa aan fiirino qaybta ugu dambeysay oo ahayd ama aan ugu magac darnay noqo actor fiican waxaan maanta ku soo qaadanaynaa maxay u baahan tahay inaad noqoto actor ama jilaa fiican oo aad u tayo sareeya. marka hore waxaan muhiim ah in isla fahanno waa maxay jiliin oo ah yani qofka jilaaga shaqadiisa. jiliinku waa buuxinta ama matalaada door markaasi malaawaal ah ama door hor u jiray in loo matalo sidii ugu habooneed ama sidii ugu saxsaneed. saas darteed waxaa muhiim ah in la isweydiiyo sababta qofka markaa uu doonayo inuu jilaa noqdo haddii ay tahay aanimo in uu hanti ka sameeyo inuu helo bulshada hadalhaynteeda ama inuu cajab geliyo ama uu farxad geliyo agaasimayaasha filimka iyo soo saarayaashaba ma ahan xaqiiqada ugu fiican ee qofka jilaa fiican ku noqon karo. jilaa fiican inaad noqotid waxay u baahan tahay in door allaala doorkii aad matalayso ama jiliinka markaasi laga rabo aad u sameyso sidoo markaasi ugu runsan oo loo qaadan karo run xaqiiqo ah sidoo kale daacadnimo markaasi ay ku jirto in doorkaas aad uga run sheegto ama sida uu yahay markaasi ameel u dhigto. jilaayaad badan waxaa markaasi jira ama jilaayaasha bilowga ah oo ku cusub masraxa jiliinka qaladaadka ay sameeyaan oo burburinay inay noqdaan jilaa fiican waxaa kamid ah in ay markaasi matalaan jilaa kale oo iyaga markaasi shaqadooda ku jira sida markaa inay matalaan jilaa markaasi ay taageeraan oo isla yihiin sidoo asaga wax u matal taasna waxay keenay in ay dhunto hibadaadii iyo jiliinkaagi maadaama adiguba aad isku dayd inaad noqoto qof kale qofkii aad ahayd ee aad markaasi jiliinka fiican aad kusoo bandhigi kartayna aad ka tagtay. saas darteed jilaa fiican inaad noqoto waxay u baahan tahay in aad noqoto mid diiradda saaro doorka uu matalayo dhibaato ma lahan sheekada markaasi lagu siiyey ama dialogue ah haysatid waxaa muhiim ah in aad markaasi u ekeysiiso run la aamini karo qofka daawanayana uusanba u maleyn in wax jiliin ay yihiin u qaato in waxa markaasi aad sameynayso ama dhacdada markaasi aad ku jirto xaaladaas in si rasmi ah adiga xaaladaas baad ugu jirto. waxaa laga yaabaa in aad ka fikirayso noqoshada jilaa heer sare ah waxa kaliya u baahan tahay waxay tahay inaad is noqoto adiga sidoo kalena aad iska ilaaliso khaladaadka keenayo in jiliinkaaga ama sameynta doorarka aad matalayso ay noqdaan kuwo markaasi ay gaarto garaafo oo isla markaana ay noqdaan kuwo fashil ah. waxyaabaha dhaxalgalka ah ee ka dhigi kara jilaa fiicanna waxay tahay doorka aad matalayso waxaa laga yaabaa inuu ahaa door jira ama uu ahaa qof jiray oo hore markaa u jiray. daawadaha waxa uu markaa daawanaya waxay tahay qofkaas ama doorkaas uu daawanaya ma ahan waxa uu daawanaya adiga shakhsi ahaan. saas darteed waxaa muhiim ah in aad iska dhigto oo aad si rasmi ah u matasho doorkii aad matalaysay ha noqdo mid malaawaal ah ama ha noqdo mid hore u jiray. qofkii daawadaha wuxuu ku raaxaysanayaa matalaadaas oo u maleynayo in adiga aadan ahayn qofka aad tahay jilaaga ama doorka aad matalayso. saasna waxaa markaa ku noqon kartaa jilaa fiican kuna soo jiita taageerayaashiisa. qaybtana qaybtii ugu horeysay qaybta barnaamijka aflaamta ka baxda sidee ku noqon kartaa jilaa fiican ama noqon jilaa fiican waxaana qaybo badan oo la xiriira cashiradan qaybtan aad ku daawan doontaa barnaamijyadeena soo socda iyadoo markaasi aan ku dadaali doono inaan noqoto jilaa aad markaasi u tayo sareeya isla markaana taageerayaashu ay ku raaxaystaan. guud ahaan barnaamijkii aflaamta ayaan halkaas kusoo gabagabeynaa waxaan idin rajeynaa waqti wacan waa inoo kulanti dambe insha allah.